xubnaha golaha wasiirada culimada iyo guud ahaanba quraada maanta halkan joogta iyo culimada maanta inta aanay u suurto gelin halkan ka soo qayb galaanba si gaar ah baan xusayaa dhammaan hablaha oo aad moodo hoolkan maanta aynu fadhino inay aad iyo aad uga soo qayb galeen bilicdooduna ay ka muuqato xafladda maanta waxaa kaloo xusayaa si gaara u xusayaa sheekh albeledka sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar ilaahay waa u ducaynaynaa inuu caafimaad ka u barakeeyo iyo da'daba sheekh cabdillaahi waxaanu isku barannay meel wanaagsan waxaanu isku barannay xarabka bay fogeyn waxay 1994 anoo markaa ka soo xajay dalka ruushka oo aan u malaynayo sanadka inaan keligay ka soo xajay waayo xidhiirka uu kala goonaa itixaadka Soviet iyo Saudi Arabia ismay ogoleen waxaan u mahadnaqayaa dhammaan inta ka soo gashay munaasabadda oo si gaar ah waliba u sii xusayo meeyarka iyo barasaabka hablaha saxaafadda iyo dhammaan shacbiga Somaliland ee maanta halkan inaga daawanaya munaasabadda maanta waxaynu isugu nimi munaasabadda xafladda daafurka barnaamijka xulka quraada oo ah barnaamij cusub oo aynu daafurayno oo ah in la duubo dadka leh hibada akhriska quraanka oo aynu ku bilaabayno reer Somaliland laakiin u furan dadka Soomaaliya ku hadla sida Sheekh Maxamed Aadan sheegay tartanka quraanka ee Soomaalida ma dadka Soomaaliya ku hadla wuxuu ka bilaabmay Somaliland Hargeysa maantana waxaanu ka daafuraynaa inaynu ka bilowno duubista quraanka dadka reer Somaliland iyo dadka Soomaalidaba inaynu Hargeysa ka bilowno barnaamijkaas la sheegay culuntiisa waxa lahaa labada wasiir iyo labada wasaaradood markii ay soo jeediyeen oo ku waafaqay in barnaamijka la bilaabo maantana daafurkiisii ayaynu halkan maanta u joognaa waxaan u mahadnaqayaa labada wasiir waxaanay xukuumaddu goosatay oo anigoo madaxweyne hogaaminayo in barnaamijka la fuliyo sidoo fulayo xukuumadda kafaalo qaadanaysa haddii la yiraahdo wasle arintan aynu bilownay maanta waxay dhiirigelinaysaa in dadka quraada reer Somaliland ee halkan tusaalahan ay laga siiyay siday u akhriyeen quraanka wasle yahay ilaahay khayr hasiye waxay u dhigmaan haddaanay kaba fiicnayn culimada islaamka ee aynu ajarada ka dhageysan jiray ee aynu wada haysano ayay u dhigmaan waxaas leeyahay waxaanay soo bandhigi doontaa in reer Somaliland iyo dadka Soomaaliya ku hadlaaba ay hibada leeyihiin haddii la yiraahdo waxay noqon doontaa wax midkeenu ku faano arrintaas oo ay tahay dhaxal aynu uga tegayno carruurteena waxaa nasiib wanaaga in culimadeennii 30 sano ama 40 sano ugu dambeysay ka shaqeynayay quraanka iyo dhigistiisa
يسوع صارست دلينيرada xufaada quraanka ay maantana u suurtageliyaan inay la saxaan barnaamijka duubista waxaan isleeyahay wuxuu noqon doonaa wax weyn oo aynu ku soo kordhinay dacwadda iyo diinta iyo quraanka intaba ilaahayna uu inoo tilmaamay in quraanku yahay hagaha nolosha iyo wanaagga إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم marka waxaan rajaynayaa in aynu gacmaha isku qabsanno xukuumad ahaan iyo culimadaba sidii aynu u fulinayno barnaamijkaas aan sheegay kuma koobnaan doono reer Somaliland oo qura waxaynu u furayaa in dhammaan dadka Soomaaliga ku hadla ee hibada leh ay halkan fursad u helaan in laga duubo barnaamijkan caasimadda Hargeysa halkan baa laga sheegay markii dhaweydo waxa la oran jiray waa caasimadda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed laakiin waxay noqotay Hargeysa caasimaddii laga bilaabay tartanka quraanka waxay kaloo noqotay caasimaddii laga bilaabay duubista quraanka dadka Soomaaliya ku hadla marka waxay noqonaysaa caasimadda quraanka caasimadda culunta shareecada iyo guud ahaanba barnaamijyada islaamiga ah arrintaasi sida aan u sheegay waa waajibaad aan qaatay aniga iyo xukuumaddaydu waxaana noqon doonaa insha Allah adeegaha quraanka kariimka ah haddii la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan culimada iyo guddida loo saaray arrintaa inay taakulayso Sheekh Maxamed Aadan ka madaxda yahay waxaan u mahadnaqayaa labada wasaaradood iyo madaxdooda iyo shaqaalahooda oo xaqiijiyay inay awood u leeyihiin duubista barnaamijka waxaan kaloo mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka siinaysa farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba sidaynu u hirgelinayno barnaamijkan waxay noo dhisan alxamdulillaah rabbil caalamiin idaacadda quraanka kariimka sida wasaaraddu ugu wargelisay idaacadda si weyn bay wacyigelinta diinta iyo quraanka gaar ahaan ay uga qayb qaadataa dadkuna si wanaagsan bay u dhageystaan waan kaga tegayaa inaan mar labaad u mahadnaqo Aamina Waris iyo madaxweyniheenii horeba Ilaahay ha u naxariisto oo inoo bilaabay idaacadda quraanka kariimka ah haddii la yiraahdo waan kaga tegayaa inaan ka codsado dhammaan dadka meesha jooga dhima waa culimo rag iyo dumarba in aanigana ii ducaysaan dalkana u ducaysaan ilaahay waddankana inoo hagaajiyo nabadda inoo adkeeyo qulubteenna isu soo celiyo midnimadeenna inoo xoojiyo waxaan isleeyahay Somaliland marka intaasi hesho way guulaysanaysaa dhinac kasta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته